halkani waa BBC oo London idinkaga imaanaysa aadna ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka FM-yada barta internetka ee Facebooka iyo waliba mawjadaha kale waxaynu si toosa u guda gali doonaa barnaamijkeennii maanta ee Jimcada halkaad naga dhageysanaysaan waa London saacaduna waa 5:00 galabnimo. maalin wanaagsan sida aad u dhantiin akhyaarta hawada inagala xiriirtay waa Jimce 3 bisha Maarso sanadka 2018 wararka caalamka waxa ugu waaweyn wadankaasi Ruushka waxa laga soo eriyay diblomaasiyiin wadamada reer galbeedka iyadoo ay kordhayso xiisadda ka dhalatay nin u dhashay wadanka Ruushka oo lagu sameeyay koonfurta wadankani England iyo waliba rabshado ka dhacay Gaza oo Falastiiniyiin ay ku dhinteen kadib markii ciidamada Israa'iil ay iska hor yimaadeen. barnaamijka dooda Jimcaha ee maantana waxaynu ku eegaynaa isbeddelka taariikhiga ee hogaamineed ee ka dhacay wadankaasi Ethiopia iyo waliba isbeddelkaasi waxa uu ku keeni karo gobolka iyo guud ahaan wadankaasi Ethiopia xaaladda maxay ka bedeli kartaa wadamadaas ayaan barnaamijka ku faaqidi doonaa dhageystayaashana ra'yigooda ayay ka soo dhiibteen barnaamijka waxaan rajaynayaa inuu runtii wax weyn ka qaban doono isbedel fiican wadankaasi uu ka dhici doono gaar ahaan xiisadda amba dagaalada ka soo dhex markasta ku soo noqda Soomaalida iyo Oromada. aniga waxay ila tahay xisbiga muxaafidka dalka Ethiopia hogaamiyaha u doortay ninka ra'iisul wasaaraha inuu ka noqdo lagu wado inaanay wax weyn soo kordhinaynin. intii ka horeysay intaan la dooran Abiy Ahmed waxyaalo badan ayuu ka hadlay oo ay ka mid tahay xaaladda guud ee gobolka iyo waliba quwadaha ku loolamaya gobolka Geeska Afrika. waxa uu si gaar uga hadlay arrimaha ku aadan Qatar iyo Imaaraadka iyo saameynta ay ku yeelatay bariga Afrika isagoo si gaarna carabka ugu dhuftay dekada Berbera oo saldhig Imaaraadka Carabtu ay dhisanayaan. Another instance is the UAE's desire to acquire the port of Berbera influences separatists in Somalia, including Puntland and Somaliland. موضوعaas ayaynu barnaamijka ku jeexjeexi doonaa. Cabdinuur Sheekh Maxamed Isaaq ayaa barnaamijka soo saaray. waxaanse ku horeynaynaa wararka BBC-da waxaana inoo waramaya Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad. mahadsanid Mawlid. ruushku waxa ay qaadeen tallaabooyin dheeraad oo dhinaca diblomaasiyadda oo ay ka qaadeen Britain khilaafka sii ballaaranaya ee ku lug lahaa nin basaas hore u ahaan jiray Ruushka oo la sumeeyay Sergey Skripal. Moscow waxay u sheegtay Britain inay haysato bil si ay diblomaasiyiintooda tirada ka joogta Ruushka ay u leekaysiin doonaan kuwa ka jooga wadanka Ruushka sababtuna ay tahay beeraadeen ku xadgudubkii Britain ay samaysay. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa hore waxay ugu yeedhay diblomaasiyiin reer galbeeda kuwaasoo ahaa kuwii eriyey diblomaasiyiin Ruushku ay leeyihiin oo markaa Ruushkuna ay ka jawaabayaan. dhismaha markuu ka soo baxay ayaa danjiraha Jarmalka u jooga magaalada Moscow Rodiger von Fritz waxa uu la hadlay saxaafadda. waynu sii wadaynaa inaan u furnaanno diyaarna waan u nahay wada hadal wixii fooshuxuma ay ka dhacay Salisbury waxay u taallaa dawladda Ruushka inay caddayso oo ay jawaab ka bixiso su'aalaha sharciga. kooxo fallaaga ah oo Suuriyiin oo aan tiro badnayn oo la sheegay inay joogaan deegaan aan ballaadhnayn oo ku dhow magaalada Dimashq ayaa waxa ay sheegeen inaanay wax heshiis la gelin dawladdaasi in ay ka baxaan goobta. hore militariga wadanka Ruushka ayaa sheegay heshiis inay la galeen kooxahaasi si ay uga baxaan magaalada Duma oo ku taalla dhinaca bariga Ghouta. muddo sanada ah ayaa fallaagadu halka xoog ku lahaayeen laakiin dagaaladii ugu dambeeyay ee dawladda wadanka Suuriya Ruushku ay ku taageereen ayaa deegaanka badidiisa dawladda gacanta u soo galay. warar laga soo xigtay Falastiiniyiinta Gaza ayaa waxa ay sheegeen 5 qof in ay dhinteen oo ay toogteen ciidamada Israa'iil boqolaalna dhaawac ay yihiin iyadoo la sheegay banaanbaxyadu inay ka dhaceen xadka Israa'iil. dad fara badan ayaa halka isugu soo baxay ciidamada wadanka Israa'iil ayaa iyagu waxa ay sheegeen dadka halka isugu yimi inay rabshado sameeyeen.
banaanbaxaasi waxa uu ka dhashay iyada oo falastiiniintu la sheegay inay dhagxinayeen israa'iiliyiinta bambooyin dablan ay ku tuurayeen. waxaa kale oo la sheegay dad badani inay iman doonaan oo dariiqada loo soo bixi doono falastiiniyiinta oo doonaya dadka qaxootiga ah ee ay leeyihiin in loo ogolaa dib inay u laabtaan dhulkii ay ka yimaadeen ee israa'iiliyiintu iminka ay haystaan. banaanbaxyo fara badan ayaa socda oo dadku socodna ay ku marayeen boodharna ay siteen. sarkaal sare oo reer bangladesha ayaa waxa uu sheegay Myanmar ama Burma inay ogolaatay 500 ilaa 600,000 oo la doonayay dalkoodii dib inay ugu noqdaan. ninka qaabilsan duucelinta qaxootiga dalka Bangladesh Maxamed Al-Kalam ayaa waxa uu sheegay dadkii halkaa lagu celin lahaa in lagu heshiin waayey, taasuna ay ka dhalatay bay dhahdeen iyada oon waqti aanay qaban Myanmar tirada dadka noqonaya. labada wadan waxaa la sheegay heshiis inay gaareen bishii Noofambar ee soo dhaaftay si 450,000 oo Rohingya ay dalkoodii ugu laaban karaan, waxaanay ka soo carareen deegaanka lagu magacaabo Rakhine. laakiin waxaa la sheegay heshiiskii inuu hakad galay. labada dhinac qolada kale ayay ku eedaynaysaa inaanay si fiican ugu diyaar garoobin arrinta. nin caan ahaa oo siyaasiya dalka Senegal, Khalifa Sall, ayaa lagu xukumay 5 sannadood xabsiya isagoo lagu eedeeyey musuqmaasuq. Sall waxa uu ahaa duqa magaalada Dakar, waxaana lagu eedeeyey lacagi inay ku baxday. ninkaasi waxaa lagu tilmaamay nin doonayay inuu la tartamo madaxweynaha dalka ka taliya Macky Sall doorashada dhici doonta 2019. Khalifa Sall taageerayaashiisu waxa ay sheegayaan in la doonayo in la curyaamiyo rajadii uu ka lahaa dhinaca siyaasadda, xiritaankiisuna uu ku lug leeyahay dembiyada uu isagu beeneeyey in laga xayiro dhinaca doorashada dalka. aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdirasaaq xaaji maxamed siraad ayuu ahaa oo inala socodsiinayay wararka BBC-da. halkani waa London. maalin wanaagsan mar kale, jimco wanaagsan. waxaynu guda gelaynaa daawadayaal iyo dhegaystayaal barnaamijka dooda jimcaha ee waxay ila tahay dalka Ethiopia. sidaynu horey u xusnay waxaa laga doortay in uu hogaamiyo xisbiga ama isbahaysiga xukuumadda waddankaasi ABRDF ninka lagu magacaabo Abiy Ahmed Cali oo isagu ka soo jeeda qowmiyadda Oromada. waxaana la sheegay inay tahay markii ugu horeysay muddo 3,000 oo sannadood oo ay hoggaanka ama jagada caynkaasi ay qabtaan dad ka soo jeeda deegaankaasi. tani waxay ka dambeysay markii iscasilay ra'iisul wasaarihii hore ee waddankaasi Haile Mariam Desalegn, iyadoo ay xigtay in markaasna arrintaasi muddo ay ka manaashaqoonayeen xisbiga EBRDF qofkii bedeli lahaa. ra'iisul wasaaruhu wuxuu iscasilay kadib markii waddanka ay ka dhaceen rabshado in muddo ah socday oo dhimasho badanna sababay deegaano badan oo ay ka mid tahay magaalada caasimadda isagana banaanbaxyo lixaadle ay ka dhaceen. haddaba isbeddelkani muxuu keeni karaa? Abiy Ahmed oo siyaasadda waddankaasi ku soo jiray muddo aad u fara badan muxuu ka bedeli karaa xaaladii qasnayd iyo jahawareerkii dhinaca siyaasadda iyo amniga ee waddankaasi ka taagnaa? guud ahaan gobolku uu qasan yahay, isagoo ka hadlayay mar aan intaan la dooran oo uu ka hadlayay si guud xaaladda guud ee gobolka. waxa uu sheegay inay jiraan wadamo badan oo ku hardamaya gobolka oo uu ka soo qaatay inay ka mid yihiin Turkiga, Imaaraadka Carabta, Qatar. waxaa sidoo kale soo hadal qaaday Israa'iil, Ruushka, Mareykanka iyo wadamada reer Yurub. waana arrin ka baxsan intii la doortay, laakiin si guud oo siyaasadda gobolkana uu ka hadlayay. dadka dhaliilsan maxay ka aaminsan yihiin? sidoo kale awood ma u yeelan doonaa in uu ku sameeyo isbeddel waddanka Ethiopia oo gaar ahaan dhinaca siyaasadda? maxay u qaadatay muddo fara badan intaas in xisbigu ay u qaataan inay soo doortaan qofkii bedeli lahaa Haile Mariam Desalegn? soomaalida gobolkaasi ama waddanka Ethiopia degan iyo soomaalida kaleba iyo guud ahaan gobolkana sidee arrintaasi ay u saameynaysaa? qodobadaas ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa. waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya oo mahad celinaya Cali Sheekh Axmed Dhegaweyne oo horey xildhibaan uga soo noqday dalka Ethiopia, haatan ah qoraa ka faalooda arrimaha siyaasadda ee geeska Afrika. qadka telefoonka magaalada Addis Ababa ayuu barnaamijka uga qayb qaadanaya.
ambassador cabdirashiid saad oo si weyn ugu dhuunduloola arrimaha gobolka muddo badan ku noolaa waddankaas Ethiopia sidoo kale stuudiyaha London ayuu isna barnaamijka uga qayb qaadanaya oo nala fadhiya waxaa kaloo barnaamijka ka qayb qaadanaya cabdiraxmaan sheekh mahdi maadi oo ah xogayaha muuraha dibadda ee ururka ONLF waxaa kaloo barnaamijka ka qayb qaadanaya maxamed ibraahim oo ah nin si weyn ula socda xaaladda waddankaasi isla markaasna in muddo qurba joog ah laakiin hadda ku sugan dowladda deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga ayuu qadka telefoonka uga jira isaguna aad iyo aad baad u mahadsantiin dhammaantiin waad mahadsantiin sida barnaamijka aad inagu ogolaateen inaad nagala qayb gashaan waayahay magaalada Addis Ababa waxaa jooga علي الشيخ أحمد دقويني هورينا حلبان أصوها عاصمة دينا جوغا ودك إثيوبيا حالدنا سوين أولا السعودي بل أرنتن عليو إلى مركي حزب EBRDF اسكور راعين إلا دورتان هوغانكا نيكاليرا هذو أبي أحمد محا صوبح إلى هذا جويقو سواسي ده هلو مين مغشا ها سيف عما كون مغلنا علي وهودا كوشرتا هذا waad qaldantay ku noqon sax warka iyada anigu weliga xildhibaan ma noqonin waana waad qaldantahay ku celi sax programku waxa tiraahdaa waayahay ali aad bad u mahadsantahay raalli baan ka bixinaynaa taas arrimaha siyaasadda inaad ka faallotid baan hadda ku ekeynaynaa taas waan saxaynaa raalli baan kaa gelinaynaa dhegeystayaashana waan ka raali gelinaynaa waa saxnay cali sheekh axmed dhegaweyne oo arrimaha siyaasadda ka faallooda ayaan hadda barnaamijka uga qayb galaysaa waana saxnay inaad xildhibaan hore aad ahayn adigana waa lagu maqlayaa si toos hawada ugu jirtaa marka mawduucan toos hore u gelaynaa adigoo mahadsan waayahay waa ku maqlaynaa hadda toos baan hawada ugu jirtaa hadda cali waayo cali marka waxaan rabnaa magaaladii baad joogtaa jawgii guud siyaasaddana si weyn baad ula socotaa arrintan doorashada la doortay EBRDF ay u doorteen Abiy Ahmed inuu hogaamiyo xisbigaasi ilaa inta ay soo baxeen xaaladda guud ee waddanku waa sidee hadii waddanku waa waddan degan control ku jiro systemka waa degan yahay wax walba sidiisa u kala socdaa ra'iisul wasaare waddanka maaragtay isbedel uu ku dhaco markii ugu horreysay maaha oo waad wada ogtihiin waa ra'iisul wasaarihii hore Meles Zenawi markuu geeriyooday kadib haddana si unbuu systemka noqday oo dadku dowladdu markuu systemka dhisan yahay shakhsiga ama hadduu dhinto ama hadduu iscasilo ama ku cusubaan la keeno oo waa systemka ayaa wax wadaaya shakhsiga keli ma aha marka waxa weeyaan waddanka wuu socdaa systemkiisu iska socdaa arrimaha howlaha dowladeed fulinteeda waa iska socdaan tanna waa siyaasad waji horle kusoo kordhay waddanku waa iska degan yahay aad baan anagu hadda dareen u dareemaynaa dadka Addis Ababa farxad iyo inta badan ayay wada muujinayaan reen waana la soo dhaweynayaa isbedelka aad iyo aad baad u mahadsantahay cali waxaan usoo wareegayaa stuudiyaha BBC-da London waxaan jeclaha inaan siiyo fursadda markan aan ku wareejiyo ambassador cabdirashiid saad oo arrimaha siyaasadda in muddo ah ku soo jiray isla markaasna u dhuundoloola xaaladda waddankaasi iyo guud ahaan gobolka iyadoo inta badanna arrimahaasi oo dhan uu si weyn ula socda ambassadorku stuudiyaha BBC magaalada London ayuu nala fadhiyaa sidoo kale waxaan jeclahay intaanan u gudagelin ambassadorka inaan xuso in dhegeystayaasha barnaamijka si toos uga daawanayaan barta Facebooka ra'yigiina waad ka soo dhiiban kartaan barnaamijka su'aalaha hadaad qabtaanna waa soo weydiin kartaan martida barnaamijka ka qayb qaadanaysa iyadoo markaasna aan su'aalihiina halkan uga jawaabi doono saacadda Afrikada bari haatan waxay tilmaamaysaa 5:15 daqiiqo waayahay markan aan siiyo ambassador cabdirashiid saad waad maqlaysay cali sheekh arrimaha kala duwan xaaladda waddanka iyo sidii u degan iyo isbedelka dhacayna waad maqlaysay adigu markaad fiiriso si guud maxaa kuu muuqda waa mahadsan tahay mawlid runtii isbedelkaas lagu doortay ama xisbiga talada dalka haya wadaagga axsaabta badan ka kooban ay ku magacaabeen Abiy Ahmed Cali waxaa loo arkaa tilaabo xagga jihada toosan loo qaaday waxaana ay ka mid tahay waxyaabihii ka dhacayay dalka Ethiopia
aan halkaa aan idin saxeeyo Ethiopia 3,000 oo sanadood qowmiyado kala duwan kaba talin jirin 3,000 oo sanadood maamul dhaxana kaba jirin marka hore marka taa inaan ogaano oo maanka ku hayno waa laga maarmaan ilaa iyo intii maamul dhaxo oo Ethiopia ay yeelato qarnigii 19aad oo imika 200 oo sanadood ku dhawaad laga joogo ayay ahayd marka 3,000 oo sanadood waa iska jireen maamullo ismaamulaya iyaga Ethiopia oo boqortooyooyin yar ahaa oo ku midownaa bartamaha laakiin ma jirin maamul dhexe oo Ethiopia oo sabab fadhiya ka hor intii ka dambeysay qarnigii 19 waqtigii isticmaalku soo galay Ethiopia marka taas saxiid bay iga tahay inaan idin saxo 3,000 oo sanadood aad sheegteen inaan iyadu meesha ku jirin laakiin 3,000 sanadood adduunkan hore u maray albaxa baaban dawladda ka jirin markii laga hadlayo maayaane waqtigii Greek hore ee xadaaradii Roomaanka iyo waxa ay jireen marka aan u soo noqdo arinta ka dhacday dalka Ethiopia waxay tahay sida ma u tilmaamay tilaabo xagga jada toosan u dhaqaaqday oo markii uu horeysay nin mutacallim ah oo aqoontiisa ay aragnimadiisa ay heer sare gaarsiisan tahay kana mid ahaa ilaa iyo isbedelkii 19 ka dhacay Ethiopia kolkii la afgambiyay Mengistu Haile Mariam xisbiga haatan dalka talada haya ee wadaaga ay talada la wareegeen waa nin ku dhex koray ninkaas maamulkaas xilal kala duwanna ka soo qabtay meelo kala duwan oo golaha wasiirada iyo marka u dambeeyay uu ahaa secretary general oo xisbi gaara oo gobolka Oromia state uu ka ahaa marka magaciibida hadda la magacaabay iyo aqoontiisa iyo sida uu wax u cabirayama waxa loo arki karayaa ra'iisul wasaare cusub oo marka hanan karaya talaabooyin cad ku soo kordhin karaya Ethiopia sideedaba shakhsi maaha arinteedu waxa weeyaan xoog kala duwan oo dana kala duwan leh ayaa jira oo marka isbahaystay oo marka talada dalka haya marka hal qof wuxuu ka bedeli karo laakiin waxbuu ku soo kordhin karaa arinta ku saabsan Ethiopia iyo gobolka oo dhanba sidoo u arko oo aragtidiisa hore uu muujiyay gaar ahaan wadamada dariska la ah Ethiopia oo ama saaxiibka la ah u dhow sida Jamhuuriyadda Djibouti iyo dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Suudaan iyo Suudaanta Koonfureed Jamhuuriyadda Suudaanta Koonfureed iyo Eritrea oo colaad iyadana ay ka dhaxayso Ethiopia gaamurtay muddo haatan 20 sano ku dhawaad ahayd oo marka maamul kasto Ethiopia qabta ama Eritrea loo baahan yahay arintaas in la dejiyo oo marka si gobolku uga baxo dhibaatooyinka ama dagaalada leh ama colaadaha leh ama abaaraha leh ama dibdhaca u keenay ummadaha ama qoomiyadaha ku nool geeska Afrika waayahay Cabdirashiid aad iyo aad mahadsan tahay aan siiyo markan studio London garabkaaga bidix waxa fadhiya Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadey oo xogayaha arrimaha dibadda ururka ONLF waad maqlaysaa Cali iyo ambassadorka Cabdirashiid adigu maxay kula tahay horta guud ahaan waxaa guul u ah shacabka guud ee Ethiopia ee kala duwan ee muddada badan nidaamkii meesha cadaalad darrada ka la halgamayay in isbedel ay qasbi karaan taa waa wax positive ah weeye oo yani waxay muujinaysaa in xaggii dhinaca positive-ka ay keeni karto shacabku markay kacaan xaqooda raadsadaan guud ahaan shakhsiyan ninkan cusub ee meesha qabsaday horta waa nin ay ababiyeen xisbiga talada haya maaha nin cusub oo meel kale ka yimid maaha waa nin xisbiga EPRDF ay ku bahoobeen 4 qowmiyadood yani ay soo barbaariyeen wey marka isbedelka iman doona kuma xirna asaga shakhsi ahaan wuxuu noqon doonaa siyaasadda xisbiga oo 20 sano ku maamulay dalka wax ma ka bedeli doonaa mise kama bedeli doono wey hadday taa keento in macnaha ay si positive oo yani sida ay ballan qaadayeen ay yani xaq dhibaatooyinkii wixii abuuray 20 sano dagaalka ka dhacay ee buuqa badan dhaliyay hadday xagga positive-ka ay u socdaan ay keentana waa la oran karaa horumar baa la gaaray laakiin haddii siyaasadii hore xisbiga ku socon jiray ku socdo yani shakhsi la bedelay wuxuu noqonayaa dhardhaar lagu bedelay midda kale oromada qolada la yiraahdo ugu badan Ethiopia 20 sano shan u dambeysay madaxweynaha wadanka ayaga hayso meeshuu joogay marka hadduu kii oo kale noqdana wax weyn ma soo kordhinay laakiin hadduu awood yeesho noqdo yani hadday timaado marka in ninkan uu fursad u helo la siiyo fursad uu change ku samayn karo يعني marka la fiiriyo aqoontiisa ilagiisa waa laga fili karaa in wax bedelo laakiin waxay ku xirtaan nidaamka Ethiopia nidaam very central ah ma furfurmi doonaa mise ma furfurtaasoo su'aasha la isweydiinayo ma iman karaan way waayahay aan u wareego Maxamed Ibrahim oo jigjiga jooga Maxamed caasimadii deegaanka Soomaalida ayaa joogtaa tan iyo markii ay soo baxday magacaabistan sidee arrintan loo hadal hayaa dareenka deegaanka iyo si guud iyo adiga fikirkaaga bal hadana la wadaag waa mahadsantahay David aad waa mahadsantahay adiga iyo odayaasha
TV kula fadhiya cabdinuur iyo inta ka shaqeysa BBC-da aada iyo aad baad umahadsantihiin. haddii aan usoo leexdo arrintan su-aasha aada i weydiisay xaqiiqdii dhabta sidee Ethiopia horta bal xoogaha aan ka qaadano maxay tahay fikir Ethiopia xagee ku taallaa Ethiopia shacabkeeda waa imisaa geeska Africa ku taallaa maxay ka goysaa maxay tahay haddii aan mataqaanaa ku yara laabto arrintan Ethiopia ismaamul waxaa ugu horreysay Melila waxaa ka horreysay Ugaali Simbaye Melila waxaa ku xigay Haile Selassie dergiga ku xigay dergiga waxaa ku xigay ururka EPRDF ku midoobay oo halgan dheer usoo galay Ethiopia waa 9 milyan iyo jarjar haddaysan 100 gaarin geeska Africa bay ku taallaa sanooyinka dambe waxay ahayd geeska Africa maahina Africa dawladda ugu tugtug furan oo xaq dhaqaale haddii la yidhaah xaq horumar haddii la yidhaah ayay ahayd maxamed adoo iga raaliya mawduucada hore usii galaya haye okay waxaa jiray habashooyin ka yimid xagga shacabka ayaa yimid oo dhowrka sano ugu dambeysay ayuu ku yimid horta ninka kan la yidhaahda Abaay Axmed Cali ayuu ku yimid Abaay Axmed Cali keligii wax ma qaban karo waxyaalihii shacabka loo ballan qaaday ururka EPRDF muddooyin badan buu shir ku jiray dhaliilaa ka soo baxay dhaliilihii ayuu ninka kan ku yimid ra-iisul wasaaraha dhaliilahaas kuma xirna asaga keligii shacabkii ayay ku xiran tahay in la soo dhaweeyo lala shaqeeyo ayay ku xiran tahay Ethiopiana hadda dhibaato ka taagan 3 institution oo ugu daran way dhisan yihiin wax dhibaato kama taagna sharci fulinta sharci dejinta sharci ilaalinta waa 3 institution oo ugu mataqaana muhiimsan weyn ayagana wax dhibaato kama taagna dhibaatooyin hadda ka soo bixi kara oo ka hor imaan kara ra-iisul wasaarahan shalay la magacaabay aniga iima muuqato waa yahay dhibaatooyin ma jiraan baa tiri waa yahay waxaa dhici karta fikirkaas in fikir ka duwan ay qabaan martida barnaamijka qayb qaadanaysa aan siiyo maadi aan ku laabto mar kale horta guud ahaan anugu markaan ka hadlo Soomaali ahaan hal shay baa anaga noo soo baxaysa waana tii aan muddo badan aaminsanayn talada Ethiopia Soomaali waxba kuma laha waxa maanta aad arkaysa 3 bilood ugu dambeysay murmay ama saysi qoomiyadda Soomaaliyeed codkeeda kuma jirin marka Soomaali la yiraahdo dhulka Ethiopia 30% annaga iskale marka la yiraahdo muxuu shucuubta Ethiopia qolada saddexaad baan nahay marka la yiraahdo muxuu ahaa inkastoo su'aasha dib ugu soo laaban doona waxaan ka soo wadaa macnaha qoomiyadda saddexaad baan nahay marka talada horta meesha ka socota anagu marti baan ku nahay waana waxyaabaha saamaynta ugu badan geeska Afrika ku yeelan doona ummadda Soomaaliyeed dhulka kaliya ma degtay geeska Afrika from Djibouti laakiin ay degtaa marka su'aal kale imaan doonta laakiin markaan ku noqdo arintan waxa weeyaan saddex tiil baa jira Ethiopia waa ammaanka weeye waa dhaqaalaha waa ciidanka weeye saddexdaasuna weli gacantii marka hore haysay ku jiraan marka haddii ninkan uu awoodi karo inuu wax ka bedelo saddexdaas laga yaabo marka inuu xal keeno waxaa kaloo jira Ethiopia waa la isku haystaa waxa weeyaan quwada dagaalamaya jira dibadda jooga quwada gudaha jooga yani dad badan oo kala duwan qowmiyadii waa wala is haysta marka hadduu xal national keeno national dialogue furo si xal wada hadal siyaasadeed oo qaran oo dhammaan shucuubta isu keeni karo xal laga gaari karo oo laga baxo yani in qaar la yiraahdo argagixiso way waa sida la yiraahdo marka waxaa soo idil waxay keenaysaa marka haddii taa xal uu keeno cusub oo weji cusub la yimaado waxaa laga yaabaa marka in yani progress uu imaan karo laakiin haddii status kooga hore sidoo hore ku socdo oo muxuu ahaa arrintaas ay u timaado oo intii hore oo la gudaha oo la isku xulafada ahayd isku qabsatay ku ekaato xalku weli sidii uu laakiin markaynu xalka fiirino waxaad moodaa dadkii hubka watay ama ururkiina oo kale ha noqoto in dadkii gudaha joogay ay isbeddel sameeyeen
oo ay tahay inay iyagu wax la qaybsanayaan dadkii oo hadda waxyaabaha la gaaray ay gaareen marka taas adigu sidoo u aragtaa waxaa weeyaan sidaadaba waa illusionka jira wax la illusionka la yidhaahdo guda iyo dibad meeshan shucuub baa jirta shucuubna xuquuqdooda raadsanaysaa waxaad la socotaa gudaha waxaa ka horreeyey yani halganka sidiisaba bini aadamka halgankiisu dibad iyo gudu yuu ka dhisan yahay markaan hadda fiirno ururadii waaweynaa ee mucaaradka ahaa Ethiopia mucaaradka ku la yaqaan rasmiga ahaa ilaa hadda mowqifkan taagan bay ku hadlayaan waxay leeyihiin haddii national dialogue ninkan uu keenana laga yaabo xal in laga gaaro haddii kalena way soconaysaa marka questionka gudaha iyo dibadda waa wax la abuuraya ma jiro shacabka maalan shacabka oromada xaggee laga xukumaa gudaha laga xukumaa dibadda laga xukumaa ma aha shacab ahaan bay u halgamayeen Soomaalidu 20 sano u dambeysay waa resistance ba ka jira nooc urba ahaado maxaarada saasoo kale way marka ka shucuub ahaan wax qanciya oo dadka u dhaxeeya hadduu abuurmana waa la dhihi karaa waxaan wuxuu noqonayaa solution buu keenayaa isbedelkii buu ku yimid ninkani iskama imaanin isbedelkii la doonayay buu ku yimid prime ministerkii horaa sheegay ra'iisul wasaarihii horaa sheegay in arrintani ay tahay isku casilay inuu xalka waddanka u arkay sidaa isbedelka uu ku yimid waxa ma ka jawaabi karaa su'aasha inuu ku yimid laskuma hayo waxaa weeyaan ma noqon karaa nin dumuuxdii shucuubta kacday ee kala duwan yani gobol u fidin kara national dialogue ka dhaco oo waxaana argagixisaa iyo waxaana kan waxa inta laga baxo dhammaan shucuubtaas guda iyo dibad meel ay joogaan inta la isu keeno xal siyaasi oo waara oo shucuubtan qancin kara hadduu keenana isbedelka macnuu samaynaya haddii laakiin uu status quo weli sii wado oo wali awoodda sidii waysa dhaqaalihii iyo militariga wax gacanta ku hayaan ma solution ma keenis meeshan bay taagnaanaysaa ambassador Cabdirashiid sida uu sheegay ra'iisul wasaarihii iminka talada ka degahaya Haile Mariam Desalegn waxaa jirta in ama guud ahaanba Ethiopia dhaqdhaqaaqii socday oo ahaa in meeshan loo baahan yahay reform in la sameeyo taa iyadana isbedel in la sameeyo taa iyadana waa ka dhabeeyeen xisbiga talada hayay dib bay isugu noqdeen ra'iisul wasaarihiina isagaba soo qatimay iyadoona awoodii iyo kalsoonidii waddanka baarlamaanku ka qaadin ayuu wuxuu soo gudbiyey iscasilaad uu leeyahay waxaan anigu kursiga u banaynayaa cid kale oo talada sii wada xilligayga iyo waqtigaygana wuu dhammaaday marka sida walaalkaynba wadda uu sheegay ra'iisul wasaaraha cusub waa wax la arki doono isaga iyo dowladda uu soo dhisaa in ay fudho albaabka oo markaas Ethioobiyada cusub loo bilaabo hanaan reform loogu sameynaya ama isbedel oo markaas dib u heshiisiin qaran iyo dadyooga weli wax tabanaya oo kacdoonkii iminka meelaha qaarkood ka dhacay ay ku jiraan dad obviously ku faraxsanaa ama happy ku ah xaaladdu sida ay uga jiraan marka guud ahaan marka la fiirsho waa arrin u wanaagsan in ra'iisul wasaaraha cusub durba markaan aragnay sida uu hadlay ama taariikhdiisa aragnay nin ku dhaqaaqi kara haddii uu taageerada haysto xisbigiisa iyo shucuubta kala duwan ee Ethiopia in ay horseedaan nidaam dimuqraadiya oo hoos ku dhisan oo markaa ogolaada sidii heshiiskuba u ahaa in qowmiyadaha ku boobay Ethiopia ee kala duwan ee nidaamka federaaliga haysta ay qowmiyad walba iyadoo ismaamulaysa haddana maamulka laakiin asag awood ma u leeyahay inuu isbedel sameeyo waxaan ognahay horey waxa u jirtay madaxweynaha in Oromo u ahaa laakiin awoodan oo ah awoodii fulinta waa markii ugu horeysay ay dhacdo inuu isbedelkaasi u yimaado marka asag awooddaas ma u leeyahay mise weli waa xiran sida uu mahdiba hadda leeyahay horta faa'iidada uu yeeshay ama advantage-ka wax la yiraahdo ra'iisul wasaarahan la yimid waxa weeyaan waa nin ka soo jeeda qowmiyadda Oromada dhinacna ah 50% dadka Ethiopia waa muslim ama ka badanba marka muslimnimo nin ah oo diinta islaamka haysta oo Ethiopia oo aan ogsoonahay xadaaradda islaamka qayb inay ka ahayd ilaa waqtigii Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam oo diintu ay soo gaadhay in maanta waddanka Ethiopia ee dariska Soomaaliya la ah maantay iyo dalka kale oo islaamka ku xeeran oo Djibouti, Eritrea, Sudan dalalka carabta u dhow in ra'iisul wasaare islaam uu ka soo baxo oo maamulku ugu horeeyay oo Ethiopia uu qabto horseed ka ahaado horta tilaabo xaggaas wanaag ah ayaa loo arkaa inkastoo hore u jiday boqor Ethiopia oo waqtigii markii Menelik u dhintay siyaasi la oran jiray oo aabihii islaam ahaa isagana lagu xiglinayay inuu islaam ahaa oo qarnigii hadda na dhaafay bilowgiisii uu ka noqday mar boqor waqti yar haddana waxaa jirta taas faa'iido inay leedahay oo markaa
dhibaato xagga diinta Ethiopia kaba jiro waa dadka qoomiyadaha kala duwan ee diimaha marka waxaa loo arki karaa talaabada uu qaadi karo oo furfurnaanta ku saabsan oo la iman karo xisbigiisuna ay ku taageeri karayaan inay tahay mid badbaadisa Ethiopia faa'iidadan u noqota guud ahaanba shucuubta ama dalalka ku nool geeska Afrika aad iyo aad maasan tahay waxaynu runtii inta aynu ognahay ka BBC ahaan waxaa jirta in hogaamiyahan cusub la doortay isaga aabihii muslim ahaa hooyadiisana ay tahay masiixi laakiin ilaa hadda anagu mayna ogin isaga diinta uu haysto marka taas waxaan jeclaynaa yaro xusno saacadda Afrikada bari hadda waxay tilmaamaysaa 5:00 dhageystayaasha BBC-da ayaa sidoo kale barnaamijka qayb ka waxaan se goor ugu gali doonaa qaybaha kale ee barnaamijka magacaygu waa Axmed British jooga magaalada Khartoum aragtida marka ka dhibto ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya aaminsan anaga inuu wax u soo kordhinayo maadaama uu yahay nin horeba ugu jiray saaxadda siyaasadda nin aan ku iman rabitaan shacab weyne oo ay ku soo doorteen iyagu fikirkooda ee ku yimi fikirkii awalba xisbi ka talinayay wadanka sadaraadeed hal mid oo marka la dhaho dhinaca laga hadlayo dhinaca qoomiyadaha waa la oran karaa xoogaa qabiilka ama qoomiyadda ugu badan ee Oromia ninkan ka soo jeeda kaasoo u suurtagelinaysa magacay waa Xayaad Aragso waxaan ka soo hadlayaa Djibouti haddaan ra'yigayga ka dhiibto mawduucaasi galabta runtii aniga waxay ila tahay ra'iisul wasaaraha cusub ee loo doortay wadanka Itoobiya in uu yahay amba noqon doono mid wax badan ka bedela wadankaasi gaar ahaan qalalaasaha siyaasadeed iyo kacdoonka shacab ee sanadadii u dambeeyay dhiig badan ku daatay dhimashada iyo dhaawac badanna sababay waxaan rajaynayaa inuu runtii wax weyn ka qaban doono isbedel fiican wadankaasi uu ka dhici doono gaar ahaan xiisada amba dagaalada ka soo dhex markasta ku soo noqda Soomaalida iyo Oromada in wax badan ka qabta ayaan rajaynayaa qaaradda Afrikana waxaan rajaynayaa inuu u noqdo tusaale wanaagsan iyo dimuqraadiyad ifas Soomaalidana waxaan rajaynayaa in ay cashar wanaagsan ka bartaan oo ay muranka iyo mooshinada iyo khilaafka siyaasadeed ay ka baxaan oo ay qaataan dariiqa dimuqraadiyadda aad baa u mahadsantihiin BBC aad iyo aad u mahadsan yihiin dhegeystayaasha BBC-da oo ra'yigooda ayaguna qaybtooda barnaamijka ka qayb dhiibanayay sidoo kale dhegeystayaal kale ayaynu eegi doonaa Facebooka waad nagu soo qori kartaan fariimaha haddii aad haysaan iyo weliba su'aalo haddii aad qabtaan waayahay jigjiga ayaan u wareegayaa Maxamed Ibraahim Maxamed su-aasha aadka ugu weyn la isweydiinaya waxay tahay ninkan cusub haddii isniinta baarlamaanka uu coday in ra'iisul wasaare uu noqdo inkastoo xisbiga talada hay ay doorteen qalalaasaha wadanka ka jiray iyo siyaasadii wadanka ka jirtay iyo amni xumadii ma yahay shakhsi ka badbaadin kara in dhibaato horle oo kale ay dhacdo waa maasan tahay Daawud mawlid way ha su-aashaada intaan u gudbo waxaan rabaa odayga maadey inaan xoogaa maaragtay u jawaabo Soomaalida kuma laha buu yiri wax kala iyo wax effective midna kuma laha buu hadda Maxamed maadey waxaan u malaynayaa nin yar ma aha waa nin oday waa nin da'a mana aha nin aan wax akhrin waa nin wax akhriya waa nin mutacallim hadda waxaa fiican wax shay aan la qarin karin inuusan qarin shalay Soomaaliya markii laga soo qaxay oo halka la yimid oo ururada yimaadeen muxuu ahaa kililkan 10 sano ugu dambeeyay oo Ilaahay raallah ka noqday Cabdi Maxamuud Umar oo qabtay inta ka horreysay waxba lama qaban waxba ma aanu nahay yiraahdo uma diidin waan ku raacsana laakiin 10 sano ee ugu dambeysay kililka Soomaalida meeshuu gaaray ra'iisul wasaarihii Benjamin Netanyahu baa ka sheegay baarlamaanka Haile Mariam Barafis Asili baa ka sheegay dawladda Itoobiya oo dhan baa sheegta geeska Afrika oo dhan baa laga sheegaa horumarkii oo 10 sano oo ugu dambeysay oo kililka Soomaaliya ku tilaabsaday ee la yiraahdo ha lagu daydo horta walaalkay macaanow ha noqonin xaasid ha noqon inaad ka naxan noqon wixii soo siyaaday oo Soomaaliya
usoo jiyaaday walaalkay u sheeg taa markaan ka gudbo may maqlaysaa halo ku maqlaynaa ha waa ku maqlaynaa bal ha ka gudbina sheeg waayahay maxamed soomaalida maxamed adoo iga raaliya waxaan rabnaa soomaalida iyo waxyaalaha u qabsoomay iyo waxyaalaha arrintan ay ka falan karto iyo isbeddelkan qaybta ka noqon karaan dabeeshan socota barnaamijka waa in usoo qaybaha dambe aynu ku eegaynaa laakiin waxaan jeclahay su-aasha in aad iiga jawaabtid su-aashan waxa weeye ninkan haddii ra-iisul wasaare loo doorto waddanka ma ka badbaadin karaa qalalaasa siyaasadeed oo dambe oo dhaca daawid ninkan keligii wax ma badbaadin kara nimankii shalayta qaylinay oo rabitaankooda shacabkan ka hadlaya rabitaankooda loo sameeyey oo laga mataqaana soo xulay qowmiyadda oromada ugu badan laga soo xulay oo intaas oo wiig loo fadhiyey iyo shacabka etoobiya oo dhan oo ninka kan garab galay ayaa adeer wax ka bedeli kara hal shaksi wax kama bedeli kara laba ruux wax kama bedeli karaan anigase waxaan rajaynayaa oo aan ku kalsoonahay in uu wax weyn ka bedela waa mahadsan tahay waa yahay aan siiyo markaa maadey wuxuu yidhi maxamed waad maqlaysay inkastoo arrimaha soomaalida iyo doodiina waa usoo laaban doona lakin waxaan rabaa su-aasha meesha waxbaa uu bedeli karaa buu yidhi adigu maxaad qabtaa marka horta waxaan rabnaa inaan xasuusano xisbigan EPRDF dalada Ethiopia haya doorashadii u dambeysay wuxuu helay 100% dooda shucuubta Ethiopia ay ka dagaalamayaan muranka ka taagan yahay waa Ethiopia dimuqraadiyad ma haysa xisbigan dimuqraadiyad ma ka jawaabay marka su'aaluhu ma aha wax ku xiran hadda ama qowmiyad gaar ama gaar ma guud ahaan horta xisbigan waa xisbi meesha talada xoog ku haysta way maadaama 100% laakiin ayagu waxay leeyahay la doortay doorasho waan garanaya waxaan ku sheegaya waa taariikhda adduunka dimuqraadiyad marka laga hadlayo 100% dawlad ku guuleysay waa la yaqaan meesha u jeeday waxay tahay taa markan ka gudbo su'aasha guud ee Ethiopia haysata waxa weeyaan ishugu ma aha muxuu ahaa hebel ma jooga mise ma joogo nidaam baa xukunka Ethiopia haya nidaam sidii ku xukumeeyay muddo badan nidaamkaas qeylada dagaalka dhaliyay ma aha nin Oromo ah ra'iisul wasaare ah nin koonfureed baa waxay ahayd nidaamkii ma isbedelayaa mise isma bedelayo haddii nidaamka uu isbedel ka abuurmo oo nidaamkii hore wax iska bedelan Ethiopia isbedesho laga yaaba mushkilada Ethiopia waa very complex kaaladooda halkaas waa digal doonta dhameeyo nidaamka Ethiopia very complex way ma aha oo kaliya yani waa nidaam dad baa ay ka tashigo doonaya oo ay raadinaya qaar ba go'aan doona qaar ba dimuqraadiyad raadinaya qaar ba nooc way waa qowmiyado kala duwan kala dana isku jeedaan ahayn oo kala duwan markaan ani arrinta Soomaalida ka hadlay gudaha waxaan sheegayaa talada lagu murmeeyay hadda meeshaas ayada Soomaali waxa la siiyay waxa loo ogolaaday lama bikeeri ba la siiyay iyadu waa wax kale way doodeeda aan gali doona laakiin muhiimaddu waxa way xukunka Ethiopia isku haysta Soomaali equation ka maqan tahay maxaan u nahay qowmiyada saddexaad maxaan u nahay dhulka ugu badan maxaan u leenahay khayraadka ugu badan maxaan u leenahay yaa naga weydiiyay afarta qolood meesha ka doodaysay ka hadlaysay nin Soomaaliya ma dhex fadhiyo maxamed taas aanu ku weydiinaya kama hadlay Soomaali laba koob la siiyay bikeeri shalay ma di adigu aad u mahadsan soomaalida arrinteeda su-aasha labaad oo barnaamijka aan wareegi doona weyaan goor dhow laakiin waxaan rabaa inaan adiga lafteeda hal su-aal aan kaala doodo xisbiyada iyo ururada hubaysan hadda ururkiina uu ka mid yahay markay xukunka qabsadaan Afrika oo dhanba ma dhacdaa in la yidhaahdo dimuqraadiyad baa dhacday way dhacdaa waxayna ogeyn hadda militariga Masar oo kale shala doorashada dhacdo kale 97% ayaa la sheegay inuu ku guuleystay Cabdilfataax Asiisi marka dimuqraadiyadu si guud Afrika uga maqan tahay su'aal is weydiin kara miyaan ahayn maya laakiin waxaan ku weydiinaya hal tusaale kaliya soo qaadanin jabhado badan baa jirgay Afrika ka dhacay waxa kamid ah ANC ba kamid ahayd dimuqraadiyada ugu qiimo badan Afrika maantana waa haystaan yani karakterka iyo nooca halgankaasi ku xigay inkastoo laakiin ayagu hubaysaneen way dagaalamay waa bes labada isugu jireen way hubaysnaayeen way jireen ciidankooda Soomaaliya lagu tababar jireen isku meel baa lagu tababaray bal dooglan wada joogi jireen ciidankooda ayaga la tababaray marka ma aha yani meel cid kama soo qaaday yani shucuubta ay ku xiran tahay nooca karakterkooda Ethiopia waxay kaga duwan tahay kuwaas Ethiopia dhaqankeeda waliga ninka qabsanay xoog buu ku qabsan jiray manala xoog buu ku qabsaday tawadros qolo kale ninka la ku yimid waa soo socda حيل سلاسة إنقلاب بلوسمي كعضون كشعب كمر كل عين من قصة قبصة ملا زناوي وحاول جبديه وكسر بحاول شيء كويمت marka way jirtaa karakterka laakiin Ethiopia arinteedu way ka duwan tahay hal dad isku dada oo isku hal shacbi ah oo xukun dimuqraad ku dagaalamaya waa qowmiyada kala duwan oo xoog la isugu keenay oo shaqo isku lahayn oo kulligood Oromada waqtigii la qabsaday waa la yaqaan Soomaali waqtigii la qabsaday waa la yaqaan Tigreega iyo Amxaarada waqtigii kala tagay waa la yaqaan Afarta waa la yaqaan marka waa nidaam ku dhisan jujuub way xoog ku yimid laakiin
marka la fiiriyo 1991kii ballanqaadkii la sameeyey oo international community ku caawiyey ee transitionka hata anagu soomaalidana kaga qayb galnay ee ahaa in qolo walba ismaamulayso dimuqraadiyad gudnay jiraysa way socon weyday oo xisbigii PRDF taladiisa keligii baa qabsaday waana kan dhaliyay maanta inaad sababay gubinayso waxa ka dhacaya marka taa haddii isbedel ku yimaadana oo dialogue national oo bilowdo leeyahay xagee uga soconnaa haddii uu noqon waayana kama waxa waaye Soomaaligu ciidan kama kawayda macallin Soomaaliya ay tiraahdo waa dhadhaal isku bedelay macnaha tigsi kuma macnaanay Cabdirashiid Asiino oo barnaamijka qayb ambassador ra'iisul wasaarahan wadanka qalaasada boos siyaasadeed ka badbaadin kara haddii ra'iisul wasaare si rasmi ah siniinta loogu magacaabo kolba waxay ku xiran tahay tallaabada uu qaado ra'iisul wasaaraha cusub iyo golaha wasiirada uu soo dhiso iyo siyaasadda uu markaa soo bandhigo oo runtii noqon karta mid ka duwan caqli buu leeyahay waa nin mutacalima garan karaya xaaladda Ethiopia ay ku sugan tahay iyo caalamku maanta imka siduu yahay ama siyaasadda caalamku ay u socdaan marka haddii prime minister cusub Abiy Ahmed Ali uu tallaabooyinka la soo baxo oo laga rajaynayo dad badan u quudareynayaan inta iyada uu ku dhaqaaqo waxay noqon doontaa mid markaa dadka ama shucuubaha kala duwan ay ku midoobay Ethiopia ay ku baraaraan oo markaa ay noqoto arinta qadiyada Soomaaliduna qayb bay kamid tahay waayo arinta dadka Soomaalidu runtii waxay tahay arin aad muhiim u ah maantay dhulka Soomaalida shaki kuba jiro in xaaladii ay ku jireen xaalad ku duwan maanta ay ku jiraan in maamul wanaagii uu bilaamay horumarra ballaaran uu ka socdo qaybo kala duwan oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida horseed baa u ahaadeen maamulka jigjiga fadhiya ee president Cabdi uu horseed ka yahay wax la inkiri kara maaha waa arin Soomaalida dhulka kaliya maaha ay ku faraxday xitaa Soomaalida kale oo dariska la ah ama ahaa Djibouti ama Somaliland ama Soomaaliya inteeda kaleeto ay arintaas saameyn ku yeelatay marka waxa loo baahan yahay wax la yiraahdo revolution dambe inaanu geeska Afrika ka imaan isbedel tartiiba oo evolution in lagu abuuro oo khayraadka sida uu walaalkay u hadlay ururka ONLF uu hadda leeyahay wadankan maadaama Soomaalidu uu yahay wadan khayraad fara badan leh oo hadda laga shaqeynayo in macdantiisa iyo petroolkii iyo gaaskii la soo saaro ay dadku ku baraaraan oo markaas qayb kala noqdaan dadka Soomaalida oo ay ka anfacaan Soomaalida laftigeeda annaga laftigeena hadaan Soomaaliya nahay danba noogu jirta deganaansho ka dhaca dhulkaas Ethiopia iyo dariskeen iyo dowlad deegaanka Soomaalida oo arrimo isku xiran baa jira waxa ogsoon tahay in dowladda Ethiopia ay qayb ka tahay maantay xasilinta Soomaaliya laftigeeda oo ciidamo ka joogan waayo Cabdirashiid aad badan marka arrimahaas oo dhan waa arrimo isku xiran waxa afka Ingiriisku yiraahdo interdependence aan u wareego waxaan siinayaa Cabdi Weyd ayaa jooga magaalada Wajeer wuxuu doonayaa barnaamijka inuu ka qayb galo Cabdi dooda waad maqlaysay waxaan jeclaan lahaa marka inaan ogaado adig aragtidaada gobolka oo dhan marka la yiraahdo Kenya joogta deegaan Soomaaliyeed baana joogta oo magaalada Wajeer ra'iisul wasaarahan haddii la doorto maxay uga dhigan tahay si guud gobolka oo dhan walaal horta wax khayr la ka dhigay haye mid kala hadda ninka ra'iisul wasaaraha lagu dhawaaqay sidoono horumar waa ku keeni karaa sidoono dib waa ku iman karaa anaga reer Wajeer magaanaanay wadanka reer Wajeer noo istan waqooyi bari Soomaalida ay dhigtay waxa la dhahaa Soomaalida waqtiga Kibaki umbaan balmeelo dhaana oo wasbanay Soomaalida kana inay noqoto waa dhiciyo waqtiga noo fiicnaa inay noqotona waa laga yaabaa haye midaada kale inta sid inaad ka imaadana waqtiga oo dhinacii oromadana wadanka Landeer ay ka tahay ninkan inay ay kaay wadada ka leexiyaan oo saambi unka noo dhahay dhahan oo dib ka imaadana waa laga shaki qaba aydan oo ay jujuubaan oo mataqaana ayagu ay awood u bataan haye laakiin ina hadda waxaan baa intan EC darno wax ka qabaaba dhinacii madaxweynihii hore Oromo sahay awoodna ma qabin waayahay Cabdi waa ku soo Cabdi marka waxaad qabtaa inuu gobolka isbedel kusoo dabaali karo si nabadeed baad qabtaa fikirkaaga waaya aad baad u mahadsan tahay waxaan jeclaynaa eego dhegeystayaasha qaarkood oo ra'yigooda su'aala qaarkood soo weydiiyey Cabdirashiid Maxamed Cumar oo jooga magaalada Boorame wuxuu yiri waa idin salaamay dhammaantiin sidoo kale ayaynu ku salaamayna Cabdirashiid
su-aal ayaan qabaa buu yidhi doorashada Abiy Ahmed ma laga yaabaa mid ka yimid culays ay keeneen qowmiyadda oromada waxaan jeclahay su-aashaas inaan siiyo maxamed ibraahim oo jigjiga ku sugan maxamed adoo ii soo koobaya su-aashaas arrimaha soomaalida mar dhowaan geli doonaa mawlid weeye maxamed marka wuxuu leeyahay ninkan dhegeystaha cabdirashiid la yiraahdo isbedelkan ma laga yaabaa mid ku yimid culays ay keeneen qowmiyadda oromada dhegeystaha ayaa su-aashan ku soo weydiiyey ana soo weydiiyey mawlid waxaa weeye horta shaksi iyo maaragtay qowmiyad culays ma keeni karto waxaa la wada soconaa in Ethiopia ay xukumo ururkaas oo ka kooban dhammaan qowmiyadaha mataqaanaa yani maaragtay Ethiopia guddi baa maamulo urur baa lagu maamulaa ee shaksi ma maamulo sidaa darteed culayska oo ra-iisul wasaarahan uu ku yimid waa guddi baaritaan sameeyey maxaa khalad hoo jira maxaa isbedel hoo jira horta guddi saas uu ku yimid oo Ethiopia macluumaad taqaanaa yani maaragtay la tashi aan annaga ka mid nahay gobolka Soomaaliya lafteeda uu ku yimid ma kuma imaanin qowmiyad Oromo la yiraahdo dadka say u haystaan qayladeeda kaliya kuma imaanin marka Soomaalidu qayb ay ka ahayd oo tashigaas qayb ay ka ahayd maxamed ibraahim maya la tashi oo maxaa jira ayaa mataqaanaa xisbi baan leenahay la tashiyaal fara badan oo la sameeyey ayuu ra-iisul wasaarahan ku yimid qowmiyad Oromo la yiraahdo oo cabsi laga cabsooday iyo reaction ay keentay laguma bedelin waxaa wuxuu ku yimid baaritaan dheer oo la sameeyey maxaa naga khaldan maxaa halaysan oo 3-4 bilood socday sida aad la socoto waxaan weydiin lahaa wala hadli kartaa mudanaha xagga jooga maxamed ibraahim 4 xisbi bay ka kooban tahay EPRDF Soomaalina kuma jirto marka waxa weeyaan tashiga goorma inta warbaahintan wala soconaa tawana wakiilana jooga inkastoo maxamed uusan ahayn mas'uul dawladeed laakiin haddana wuxuu sheegayaa in ay jirto tashi Soomaalidu qayb ka tahay nidaamkeeda ka tahay absolutely Soomaalida waxa weeye luflufka ka soo hara madaxda sare Ethiopia yalla si tashina kuma laha go'aanna kuma laha tanna waxay u tahay astaamaha dadka shacabka ay u halgamayaan laakiin dawladda waxay sheeganaysaa inta dawladda dimuqraadiya oo federaal oo gobol wadankii oo dhan matalaysa ma xisbiga PPRDF hada wax dooranay dhisay ma baa wax ku saabsan shucubta Ethiopia hatta xisbiga ay qolyaha jijiga ilay talada kuma jirin maxamed aan siino maxamed hatta observer ma ay shirka weydii waxaad weydiisaa observer ma ay shirka hadii PPRDF fadhi waaya maxamed oo ku maqlayna maxamed haye iwad adoo raali ha wala horta min ceelkii ku jira jijiga joogo Ethiopia xubnaal u eg nin aanan innaba weligiisna imaanin oo daafaha maaragtay socday inuu Ethiopia nooga sheekeeyo ma aha Soomaalida halay ku leedahay culays weyn bay ku leedahay tashi ay ku leedahay meel mataqaana Afrika xisbi oo sheegayso oo EPRDF ka kooban waxay la tashtaan ururadan kale oo agaarka la yiraahdo kala la'aantood ma goosan karaan bal horta qabso dad meel ka jooga oo wixii la maamulo loo keena ma aha Soomaalida aana waxaa daliilkaaga waa xukuumadda innaba haba yaraatee aan la faragashanin weeye Ethiopia waxaa xukuumad dastuur bay leedahay waayahay dastuurkaas lagu xukumaa waa maxamed aad baad u macsan tahay waana la tashaday baa tiri waayahay waxaan jeclahay inaan arrimaha Soomaalida aan markaan si toos ah u guda galno ambassador Cabdirashiid Saad baan siinayaa Ethiopia saameyn bay ku leedahay arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxaa xustay in ciidan uu ka joogo inkastoo su'aal dhigaysa uu soo weydiiyaan ku sii su'aali doono laakiin maxay uga dhigan tahay isbedelkan ee Soomaalida maxay ku keeni kartaa ma wanaag ba imaan kara ma qatar ba imaan karta maxay ka dhigan tahay waxaan rabaa horta inaan arrin iyadana aan intaanan taa guda galo oo walaalkayga ka soo hadlaya jigjiga uu iminkaba badaamiyey inkastoo Ethiopia ururkan dalaayada oo wadaagga 4 xisbi ka kooban ay soo saareen ra'iisul wasaaraha cusub laakiin dad badan oo xisbiya leh oo xisbiga Soomaalidu ka mid yahay Ethiopia
ayaa lala tashaday oo arrintaa oo kale oo stakeholderska waddanka ka mid yihiin qayb xoog leh oo ka tirsan dalka Ethiopia oo horumar iyo dhaqaale weyn laga filayo gobolka oo dhan inuu soo kordhiyo Ethiopia ayaa Soomaalidu ku fadhidaa marka ayaan la dhayalsan kaalinta Soomaalidu ay ku leedahay go'aan kasta oo dawlad Addis Ababa ka dhisan ay qaadato xaaladdu sidii bari hore ay ahaan jirtay way ka duwan tahay iminka marka tashi waa iska jiraa iyaga iyo qaymada kaleba marka arrinta Ethiopia isbedelka iminka ka dhacaya seebay saameyn ugu yeelan kartaa xaaladda ka tirsan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa iska caddahay waxa weeyaan Soomaaliya iyo Ethiopia waa daris waxyaabo badan oo interdependency ayaa ka dhaxeeya oo dhaqaalaha ku saabsan oo dadka wada dhalashadooda ku saabsan oo ammaanka ku saabsan oo dhinacyo fara badan saameyn ku saabsan dhulka ay taalo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaaba wuxuu u ahaan karaa mid u muhiim ah nabadgelyada iyo horumarka Ethiopia laftigeeda marka uu taaban karayaa dhanka siyaasadana sida ogsan tahay dawladda Soomaaliya ilaa iyo barigii la dhisayay maadaama ay kamid ahay wadamada IGAD todobada fadhigoodu yahay Djibouti Jamhuuriyadda Djibouti iyo madaxweynaheeda President Ismaaciil Cumar Geelle ilaa iyo bilowgii uu bilaabay dawladda in la dhiso ka dhisan Soomaaliya bilowgii dawladda soo noqonaya waxa ay mar walba laga shaqeynayay sidii dalalkaas ay u taageeri lahaayeen dawlad Soomaaliya caga dhigata kadib markii aan burbur muddo ku sugnayn marka Ethiopia kaalin weyn maadaama ay kaga jirto dhanka ammaanka iyo ciidamada iyaga iyo wadamada kale oo Djibouti iyo Ethiopian gobolada dhexe way joogaan iyo beledweyne iyo sidoo kale Baydhabo iyo Kismaayo iyo meelo badan bay qayb ka qaataan horumarka marka Soomaaliya ka socda iyo xasilinta Soomaaliya iyo ciidamada Soomaaliya loo dhiso iyo Amisomba Ethiopia qayb xoog leh ka ahay marka waxa la isbedelkaasi waa ifaalo wanaagsan buu yahay Soomaalida xataa waa u yahay inuu sii socdo marka deganaanshaha Ethiopia Soomaaliya waxay u tahay dan in Ethiopia ay degto oo marka Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Djibouti iyo Kenya iyo Uganda ay isku xirnaadaan waxaan jeclahay dhageystayaashana goordhow u soo bandhigno Abay Axmed iga raalo boqsiinaya maaday oo ka hadlaya si guud gobolka arrimaha ka jira iyo quwadaha ku loolamaya isagoo soo hadal qaaday Soomaaliya iyo arrimo kala duwan isagoo ka hadlaya ayaan goordhow gali doonaa laakiin waxaan jeclahay inaan u wareego maaday arrintan ku dhawaajiyo Soomaalida horta safiirka aad baan uga ra'yi duwanahay 20 sano u dambeeyay ummadda Soomaaliya dawladda Soomaaliya meesha maanta taagan tahay Ethiopia dhigtaan sana misanaa anagu Ethiopia faragelin kala qaybin maamulada mid lugooni ula hoos wala xamato burburinta Soomaaliya u taagnay laakiin madaxa Soomaalidu waxay sheegtaan Ethiopia xiriir fiican leeyihiin ay caawiso ra'yigan dhiibanaya waxa weeyaan marka uma arko inay positive influence ku leeyahay Soomaaliya Ethiopia waxaan arkaa inay Soomaalida burburkeeda qayb ka tahay yani oo maanta kala qaybinta Soomaalida iyo dawladda Soomaaliyeed 77 oo kale intee xoogaysato walaalaha taageertay inay soo bixin waa siyaasadda Ethiopia inta markaan ka gudbo ninkan shakhsiyan waan arki doonaa siyaasaddu qaadada anu ma rabo inaan hormaro laakiin xisbigiisa ilaa hadda intaan ka haynay Soomaaliya inay sidan ahaato kala qaybsanaato kun ahaato kala anagu taasaan arkaynay roolka siyaasadda guud oo ka ciyaarayay haddaan u soo noqdo marka influence ku yeelan kara ama keeni kara xal ma ka keeni kara Eritrea iyo Ethiopia dhibaatada ka jirta ma ka keeni kara xal Soomaaliya waxyaabaha ka jira anagu kolley haddii siyaasaddii EPRDF ku socotay 20 sano ay ahaato waxaanu aragnaa khatartii weliba hadda nin kaloo ka awood weyn oo weliba meelo badan dabada ku haya inay dhibaato ka weyn iyo hami ka weyn inuu dhasho waan ka cabsanaynaa marka ummadda Soomaaliyeed annaga shakhsiyan cabsi weyn baan ka qabnaa guud ahaanna ummadda Soomaaliyeed 100 sano waddanka ka dagaalamaysay cramps Addis Ababa laga keeno umay dagaalamayeen xorriyadooda ay ka tashogada u dagaalamayeen marka issue-ga fundamentalka ma filayna ninkan inuu xallin karo marka kolley geeska Afrika khilaafkiisa inuu istaagay anagu ma aaminsan maaragtay ama ilaa inta siyaasadda hadda ay jirto iyo nooc ku socda ku dhisan yahay waxaa la oran karaa runtii tallaabada hadda ka socota geeska Afrika oo dhanba in laga fakaro baa loo baahan yahay waxyaabihii horay u ragaadiyey oo la degay geeska Afrika in laga gudbo midka taagi waa dhamaaday shucuubka dadka geeska Afrika adduunyadii baa hore u martay Yurub waad aragtaa oo aan joogno sida la isu kaashanayo wadamadii shalay colaadu ka dhaxaysay Germany iyo France iyo Talyaaniga iyo maanta inay one currency ama hal lacag samaysteen dadka geeska Afrika oo runtii Allah subhanahu wa ta'ala ku wada abuuray gobol oo waxyaabo badan ka dhaxeeyaan in ay ku jiraan mugdigii waxaa ka haboon in wada cusub iyo dad cusub oo caafimaad qaba ay horseed ka noqdaan waana siyaasad
runtii qof walba u riyaaqayo in shucuubta la horumariyo oo nabadgelyo la helo la wada noolaanana muddada yar ee adduunka lagu nool yahay Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo Kenya iyo Sudan iyo Eritrea wadamadaas oo dhan sababtii ay madaxdii joogtay 30 sano ka hor ay igad u sameeyeen president Allah u naxariisay Xasan Guuleed Abdidoon markuu ku shirayay magaalada Djibouti looba abuuray igad waxay ahayd in marka laga gudbo dhibaatooyinka rafaadka iyo abaaraha loo gudbo horumar iyo dhaqaale marka ummadu isku kaashadaan maantana waxaan rajaynaynaa in shucuubta ku nool geeska Afrika ay xorriyadooda iyo wadajirkooda ay iska kaashadaan dadka Soomaaliduna ay ahaayeen dadkii victimska colaadahaas oo dhan iyo dhibaatada u ahaa oo ama isticmaalkii hore oo qaybiyay ama ahaadeen meel kala duwan waxyaabihii ku dhacay shacabka ku nool gobolka deegaanka Soomaaliduna maanta waxay u yihiin xudun horumarka ummadda Soomaaliyeed way aad baad u maasan tahay waxaan rabnaa inaan wax yar aan dhageystayaasha maqashiino Abi Ahmed Ali oo ka hadlayay si guud xaaladda gobolka iyo waliba loolanka ka jira gobolka ma ahayn xilligii la doortay wuxuu ka hadlayay xarun su'aal lagu weydiinayay ayuu ka hadlayay bacdama uu yahay siyaasi deegaanka marka arrimaha uu ka hadlay waxa kamid aha loolanka guud aynu maqalna marka clipkan many of influence dispense into the horn wadamada geeska Afrika waxaa jira waxyaabo badan oo saameeyo oo hor istaaga hamiga ay wadamadu leeyihiin inay gaaraan una sababa inay wadamada geeska Afrika ay ku adkaato inay hantaan siyaasadooda arrimaha gudaha faragelin ay la kulmaan dhab ahaan geeska waxa ka dhacaya waxaa tusaale ahaan loo soo qaadan karaa sida dagaalada beelaha ka dhaca gudaha dalalkaasi sida kan Gambeella ka dhacay oo kale oo u dhaxeeyay qabiilada Anyuak iyo Nuer ee saameeyay Ethiopia iyo Koonfurta Suudaan isku dhacyada dhex maray Cafarta iyo beesha Ciise ee Soomaalida ee saameeyay Ethiopia Djibouti iyo Eritrea dagaalka dhex maray qabiilka Boorana ee Oromada ah iyo beesha Garaha ee Soomaalida ah sida oo kale xiisadda beelahaasi waxay saameysay Ethiopia Kenya iyo Soomaaliya waa dhacdooyin dhawaan dhacay dagaalada dhex maray ogaadeen iyo beelaha kale ee Soomaalida ah ee Ethiopia iyo Soomaaliya iska horkeeni gaadhay waa mid aynu xusuusanayno dagaalada iyo dhibaatooyinka aan dhamaadka lahayn ee ka dhaca Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ay maalgeliyaan iyaga oo dana kala duwan kale waddankaasi dalalka sida Sacuudi Carabiya Qatar Iiraan iyo Turkiga dhacdada kale ee aan tusaale ahaan u soo qaadan karno ayaa waxay tahay arrinta Imaaraadka Carabta ee dekadda Berbera ee ay ku kala qaybsan yihiin Soomaaliya dowlad goboleedyada Puntland iyo Somaliland separatists in Somalia including Puntland and Somaliland Abi Ali ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay arrimaha ku aadan xaaladda guud ee gobolka iyo qataraha iyo dagaalada iyo sida gobolku uu yahay gobol aad u jilicsan waxaana arrintan uu jeediyay hadalkan ka hor intii aan loo dooran xisbiga EPRDF taas ayaa naga xasuusa waayahay wuxuu soo hadal qaaday arrinta ku aadan dagaalka Soomaalida iyo Oromada muxuu ka qaban karaa maadey horta dagaalka Oromada iyo Soomaalida waa mid artificial way shacabka Soomaalida Oromo colaad kama dhaxin mana dagaalamayn waxa abuuray xisbiga EPRDF oo kala adeegsanaya labada maamul cadeynanaga hayna maamulka labada dhinacba ciidanka iyo booliska iyo ciidanka Oromada oo maleeshiyada ya instigate gareeyay marka Soomaaliya Oromo colaad kama dhaxayso wax weyn uu ka qaban karaa waana positive inuu wax ka qabto waana aaminsannahay waxa rab in hal eray ku daro walaalkay ninka boqolka kun ee Soomaalida xabsiyada ku haya Soomaalida galbeed ku haya ma ogaadeenya kan walaalkooda xagga jira waxba ma taray taa inuu ku talagal rabnaa rag dagaalamay laakiin hay waa yahay waa mahadsan sida la sheegay qoobiyadaha dagaalha iyo sida walaalkay sheegayba waxa dhici karta maadaama uu Oromada ka soo jeedo nin muslim ma yahay dadkana dad colaad ka dhaxaysa ma hay sida qalifsan oo qariban ayaa la dhex dhigay oo markaa isku leynayeen inagoo Soomaaliya ayaa oo hal ummada ayaa wadankeeni isku leynay oo waxaan jirin isku leynay marka waxa loo baahan yahay dadku inay u fakraan dhanka jahada toosan inagoo dhanna marka asaguna wuxuu ka qaban karnaa guud ahaan waxa loo baahan yahay dadku inay ka fakraan horumarkooda iyo wadajirkooda iyo wada noolashaha iyo wax la yiraahdo in la isu baahan yahay dadku in ay si wada jira geeska Afrika aad bad u maasantahay waxaan siinayaa adoo iga raaliya Maxamed waqtigan aad ba cariir igu yahay daqiiqad barkeed Maxamed Ibrahim horta waa maasantahay walaalkay Oromada iyo Soomaalida isla hayseele waa la isku diray adeer la iskuma dirin wax ma taqaana isku dir la yiraahdo ma laha
waa lagu dagaalamaa dadka soomaalida ee meesha lagu laayna oroma mataqaanaa gardarra ayay ku laysay iyadaa ka jawaabi doonto tan kale kililka ugu muhiimsan kililada Ethiopia waa kililka Soomaalida waayahay maxamed waqtiga naga dhacay maxamed aad iyo aad baad u maasto ka raali gelinayaa barnaamijka ayaan inta kusoo gabagabeynayna waxaa ka qayb qaadanayay cali sheekh axmed dhegaweyne oo aan ka curdaaranayno in qadka telefoonka noo geli waayey oo arrimaha siyaasadda ka faallooda ambassador cabdirashiid seed oo arrimaha afrika si weyn ugu dhondolola cabdiraxmaan sheekh maadi oo ah xogayaha arrimaha dibadda ONLF iyo weliba maxamed ibraahim oo magaalada jigjiga ku sugnaa barnaamijkana waxaa soo saaray cabdinuur sheekh maxamed nabadgelyo